qaybteena xigta waa maxay waa divisions of fraction qaabkee la isugu qaybiyaa fractionada qaybta 10 noo xigta waa intaas okay waxaan ka hormarinaynaa note yar oo muhiim yahay inaad fahantid si aad ugu shaqeysid fractionska waa inaad fahantaa divisions of fractions aad ugu shaqeysid waa inaad fahantaa note kan muhiimka ah the product of a number and its reciprocal is 1 that are for all fractions of a divided by b ama a over b where a comma b is different from 0 a over b times b over a taranta tiro iyo rogaalkeeda wuxuu la mid yahay hal maxaa la wadaa taranta fraction ama taranta tiro iyo iyada rogaalkeeda wuxuu la mid noqonayaa 1 taasi macnaheedu waxay tahay a over b haddii lagu dhufto b over a waxyaabaha muhiimka inaad fahantida waxay yihiin reciprocals rogaal oo sidee ah haddaba a over b totally waxay u qoran tahay as a normal ay u qoran tahay a divided by b tan laakiin nidaamkay u qoran tahay b ayaa kor soo mariyay a di ayaa hoos soo martay nidaamkan ayaa loo yaqaanaa reciprocal okay haddaba marka tan waa numberkii caadiga ahaa tanna waa rogaalkii numberkani labadooda markaan isku dhufano natiijadeeduna waxay noqonaysaa hal ay noqonaysaa fiiri look at haddii weeyaan b ay ka duwan tahay b is different from 0 sababtaan u leenahay b is different from 0 maxay tahay haddii b ay 0 noqoto hooseeyeen hadduu 0 noqdo su-aasheena waxay noqonaysaa undefined ay noqonaysaa okay haddaba waxaan leenahay marka a over b oo lagu dhuftay b over a waxay la mid tahay hal sidee ah look at hal loo qaybshay labo tan reciprocalkeedu wuxuu noqonayaa labo loo qaybshay hal ayuu noqonayaa fiiri labo hal ku dhufo waa labo hal ku dhufo waa labo haddaba labo u qayb muxuu noqonayaa hal haddaba notekeeni waa correct si aad ugu shaqeysid definitionska si aad ugu shaqeysid waxaa laga maarmaan ah inaad reciprocalkan aad fahantid okay tusaale example divide eight over 5 divided by 2 over 5 okay qaabkani markuu u qoran yahay jajabkeena oo definition oo nidaamkan uu qoran yahay sideen u xalinaynaa run ahaantii aad ayuu u fudud yahay mar walba waxaad sameynaysaa kan caadi aad iska qoranaysaa kadibna waxaad ku dhufanaysaa rogaalka tan ayaad ku dhufanaysaa waxay la mid tahay aan leenahay 8 over 5 oo lagu dhuftay aad leedahay tan rogaalkeeda ayaad ku dhufanaysaa rogaalkeeda muxuu noqonayaa 5 over 2 ayuu noqonayaa okay haddaba 8 times 5 waa imisa waa 40 weeyaan divided by 5 times 2 waa imisa waa 10 okay haddaba jawaabteena waxay la mid noqonaysaa 4 ay la mid noqonaysaa 0 cancel by 0 4 divided by 1 waa 4 caadi okay ama 4 divided by 1 ka lama muujiyo tirada haday meeshan 4 ku imaado over 1 ka waa si qarsanaysaa dhib ma lahan okay mid kale aan qoraynaa 6 whole number 2 over 5 oo loo qaybshay 2 divided by 7 sideen u xalinaynaa firstly kan waan soo baranay waa mixed fraction ka sida loo xaliyo maxay ahayd firstly tan xalli markay laba isku dhigmaan ay noqdaan ku dhufo markaas kadib okay waxaan leenahay tan ayaan xalinayaa 5 aan leeyahay ileen okay haddaan si gooni aan hoos ugu soo xaliyo waxaan leeyahay 6 2 5 waxay la mid tahay tan keligeeda solutionkeeda waa 5 5 lagu dhuftay 6 oo loo geeyay 2 ay noqonaysaa 5 6 ku dhuf waa 30 2 geey waa 32 divided by 5 okay tan 32 divided by 5 ay u imaaday teedii marka hadda sidoo u soo qaado waxaan leeyahay marka 32 divided by 5 oo loo qaybshay labo la hoos dhigay 7 ama 2 over 7 okay
haddaba waxaan leeyahay 32 over 5 times tan reciprocalkeeda ayaan ku dhufanaya ama rogaalkeeda ayaan ku dhufanaya. Rogaalkeeda muxuu noqonayaa 7 la hoos dhigay 2 ayuu noqonayaa. Okay, haddaba 32 ku dhufo 7 waxay noqonaysaa maxay? Okay, 4 1 7 times 3 waa 21. hal ugeey waa imisa 22. Okay, waa 14 1 okay, haddaba waxay noqonaysaa 224 oo loo qaybshay 5 2 ku dhufo waa imisa waa 10. Okay, haddaba halkan waxaa inooga eg qaybtii definitionka ayaa inooga eg. haddaba halkan ayuu noogu dhamaaday fractionka iyo operationadiisa.